munaasabadan oo isugu jirtay soo dhaweyn loo sameeyay wafdiga ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo kala warqaadasho ku aadan baahida ay qabaan dadka reer Baydhabo ayaa xal lagu qabtay xarunta madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiiro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya madaxda dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Baydhabo dhammaan dadkii ka hadlay munaasabada ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda u soo bandhigay baahiyaha gaarka ay qabaan ee ay doonayaan in dawladda dhexe wax kala qabato waxaana ugu muhiimsanaa in la isku furo wadooyinka waaweyn oo isku xira magaalooyinka Koonfur Galbeed iyo caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya warbixin guud ka siiyay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed waxaan codsanaynaa midaan hadda nugu taagan oo jidkan runtii dadku dhibaatooyin ay ka haysaa waxaa dhacday in dadkoo dhan ay diyaarad raacaan dadkoo dhan diyaarad ma raaci karaan marka waxaan rajaynaynaa jidkan sidii uu ku furmi lahaa ciidan iyo dhab kasta uu ku furmi karo in runtii uu wax laga qabto ra'iisul wasaare maashahaga ay dadkan aad inay ugu diirsadaan sidii bil dhalateena ku sugayeen ra'iisul wasaare maanta Allah ku keenay waa ka sugaynaa in sidii Allah sidii wax lagu qaban lahaa ay arintaas ay dadkan ay waxay ku diirsadaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo hadal dheer u jeediyay shacabka ka qayb galay munaasabadii xalay oo uu kaga hadlayay xaaladda guud ee dalka iyo rajada uu leeyahay dalkeenu ayaa tilmaamay in dawladda Soomaaliya ay ka shaqeyn doonto sidii la isugu furi lahaa wadooyinka isku xira dhammaan magaalooyinka wadanka cadawga nabadiidka al-shabaabna laga xoreyn doono meelaha yaryar ay kaga sugan yihiin gobolada dalka qaarkood sanadka dambe markii ugu horeysay ayaa waxaa haddii Ilaahay yiraahdo la dhisi doonaa iskuulo iyo isbitaallo oo lagu dhisi doono lacag laga qaaday shacabka Soomaaliyeed oo aan dunida laga soo baryin haddii Ilaahay yiraahdo waxaan diyaar ku leenahay haddii aan nahay madaxda dawladda federaalka inaan kala shaqeyno wax walba oo kugu caawin kara inaad u rartid dawladdaada xarunteeda dhabta ah oo ah magaalo madaxda dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Baraa maadaama marka aad tihiin shacabkii reer Koonfur Galbeed shacabkii reer Baydhabo oo ahaa shacabkii lagu yaqaanay nabadda iyo horumarka maadaama aad tihiin dadkii soo bilaabay iftiinka ummadda hadda ay haysato in dadka Soomaaliyeed la isugu keenay nidaam federaal ah federaalku wuxuu u baahan yahay in la dhameystiro si loo dhameystiro waxyaabaha muhiimka ah in wax laga qabto waxa kamid ah in laga shaqeeyo dhameystirka dastuurkeena qabyada in la isugu yimaado doorashooyin sanadka 2020 oo haddii Ilaahay yiraahdo qof walba uu dhiiban karo codkiisa in laga shaqeeyo dhameystirka nidaamka federaaleynta oo dhan maadaama idinku aad tihiin marka laf dhabarkii nidaamka federaalka taariikhdeena Soomaaliyeed waxaan madaxweynaha iyo dhammaan shacabka reer Koonfur Galbeed ka codsanayaa inaad noola shaqeysaan si hufan safarkan shaqo ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ku jooga magaalada Baydhabo ayaa qayb ka ah safarada uu ku tagayo gobolada dalka si uu ku garo xaaladda ay ku nool yihiin dadka ku nool gobolada dalka oo laga yaabo inay kala duwan tahay Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka Baydhabo